saacadihii ugu dambeeyay waxa si weyn u soo baxayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu imanayo magaalada Laascaanood ee Somaliland. Haddaba muxuu salka ku hayaa safarka Xamse Cabdi Barre oo ku imanayo bariga gobolka Sool? Qorshaha kan ma Somaliland ayaa lagu xumaynayaa mise maamul goboleedka Puntland Soomaaliya? Suuragal ma tahay in lagu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu yimaado magaalada Laascaanood oo Somaliland ka tirsan? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qorshaha filla Soomaaliya ay ka leedahay socdaalkan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ah nin maadeys iyo majaajilo lagu bartay, hadalkiisuna aanu micno weyn oo siyaasadeed ka lahayn Soomaalida dhexdeeda, ayaa ila wareedyo isa soo taraya saacadihii ugu dambeeyay waxa ay sheegayeen inuu imanayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweynayo. haddaba socdaalkan ma waxa loogu danaynayaa beelaha dhulbaxante oo labadooda degmo ayay go'aansatay filla Soomaaliya inay uga dhigto maamul ka madax bannaan Somaliland? maxayse yihiin qorshayaasha faa'iidada leh ee uu sido deegaankan? Xamse Cabdi Barre ayaa safarkiisu sida la saadaalinayay saacadihii ugu dambeeyay waxa uu salka ku hayaa laba qodob. kan koobaad ayaa ah ku xumaynta Somaliland siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan, maadaama oo dagaal adag ay ku wada jiraan galkana haatan aanay seeftu ku jirin. filla Soomaaliya ayaa go'aansatay inay deegaamo ka mid ah Somaliland madaxdeedu yimaadaan iyada oo aan waxba laga weydiin Somaliland. beelaha dhulbaxante iyo Somaliland inay kala xiriir furteen oo khilaaf xoogan oo gacan ka hadal gaaray ka dhaxeeyo waa mawduuc kale oo ka madax bannaan xuduudaha iyo soohdinta, balse Somaliland iyo Soomaaliya ayaa leh xuduud rasmi ah oo la isla yaqaano Afrika iyo adduunka kalena ka jira, kaasi oo aanay cidina waxba ka bedeli karin. inkasta oo intii ay Somaliland jirtay aanay marna soo taaban xuduudkeeda, balse waa himilo iyo hami ay leedahay kaasi oo ay gaari doonto marka ay aqoonsi caalami ah hesho. aynu ku noqono ujeedkii safarka Xamse Cabdi Barre. qodob kale ayaa ka ku hoos jira oo ah ku xumaynta Siciid Cabdullaahi Dani oo ay kala xiriir furteen filla Soomaaliya mar horeba, taasi oo dagaal diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed ka dhaxeeyo. qodobka koowaad ee socdaalkaasina hadiiba uu suurto galo waa ku xumaynta Garowe iyo Hargeysa. degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaana waxba u sidin, balse filla Soomaaliya ayaa ka dhiganaysa wax la isticmaalo markii loo baahdo, waxaana lagu kululeynayaa oo xariga lagu geejinayaa siyaasadda labadan dhinac. Somaliland oo haatan aqoonsi caalami ah sugaysa sanadkan 2025 iyo maamul goboleedka Puntland oo gooni isaguna isaga taagay Soomaaliya markii uu ku qanci waayay hanaanka iyo siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud uu wax u wado. dhammaanbana Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu diidan yahay talada iyo tallaabooyinka maroorsiga ee uu Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayo inuu muddada talada uu haynayo ku sii dheeraysto, taasi oo laga diiday madaxdii isaga ka horeysay. Xamse Cabdi Barre ayaa qorshe kale oo uu safarkiisa iyo socdaalkiisa haddii uu suurto galo ku jira la ogaaday, kaasi oo ah dagaallo iyo duufaano siyaasadeed oo Somaliland lagu soo afuufo, taasi oo saanad military iyo ciidamada loo ballan qaadayo deegaankan, balse lagu tirtirsiyayo ama se lagu dhiirigelinayo inay duulaamo gala bixiyaan deegaamada ay dariska yihiin ee ay awalba duulaamada ku wadeen. waxa uu ballan qaadayaa taakulo iyo taageero xoogan oo dhinaca militariga ah iyo dhinaca dhaqaalaha, taasi oo Somaliland lagula dirirayo. filla Soomaaliyana waxa ay istustay sida xeeldheerayaasha falaqeeya siyaasadda ay sheegeen in deegaamada tani ay qabsan karaan dhul badan oo Somaliland ah, sidaasina lagu soo afjari karo qaranka 60 milyan ee qof ay ilaashanayaan. inkastoo ila wareedyadii ugu dambeeyay ee warbaahinta xogogaal hesha ay sheegayaan deegaamada bariga Sool oo aan ka maarmi karin ku tiirsanaanta maamul goboleedka Puntland inay si weyn uga soo horjeesteen socdaalka danaha siyaasadeed ay filla Soomaaliya u isticmaalayso, taasi oo uu safarkii sidaasi ku baaqsaday Xamse Cabdi Barre. khilaafkii iyo ismaandhaafkii uu rabay inuu Garowe iyo Laascaanood kala dhex dhigana haatan wuu hirgeli waayay, balse mar walba ayaa qorshuhu isbedeli karaa haddii balag loo lulo jabhadda magaalada Laascaanood.